kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Live Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan kugu haynana waxa ugu waaweyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo isku fahmi waayay kulan ka socday magaalada Garowe iyo Saciid Deni oo qol ku soo xirtay Xasan Sheekh Maxamuud halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa sababta ka dambaysa fashilka ku yimid kulamada lagu dhexdhexaadinayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland xog xasaasi ah ayaan kaga haynaa dawladda Itoobiya oo la sheegay in ay qorshe halis ka damacsan tahay gudaha arrimaha siyaasadda Soomaaliya haddaba maxay tahay Abiy Ahmed oo hal tilaabo oo caqabad ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dalka Tunisia kaga qayb galay shir muhiim ah oo looga hadlayay qodobo dhowr ah oo la xiriira horumarinta Afrika halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Somaliland oo eedayn kuleel u jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi xog xasaasi ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa fadlan daawadi muuqaalkan dug soo gaaro si share garaysaano la saaxiibadiinko kale waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo la jaanqaadkiina haddii aynu ku bilowno madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu isaga baxay shir madaxtooyada maamulka Puntland oo kula lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi oo Deni marti ugu yahay dhowrkii maalin ee la soo dhaafay inkastoo kulamadii u dambeeyay ee Garowe uga socday Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay cidna aysan ku weelin labadooda isla markaana aysan wax horumar ka sameeyeen intii kulankan uu socday ayaa haddana waxa la sheegayaa in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu arintan aad kaga carooday isla markaana dhowr qodob oo muhiim u ah asaga uu hordhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaasina uu ka biyadiiday haddana waxa ay doonayaan labada dhinac in la ballaariyo kulamada oo lagu soo daro mas'uuliyiin ka socota labada dhinac ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana haatan waxa garab u ah siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland kuwaas oo Deni ku cadaadinaya haatan inuu la heshiiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa go'aamiyay in kulamada ka socda haatan madaxtooyada maamulka Puntland in lagu soo daro 3 wasiir oo aad ugu kalsoon yahay oo aysan haatan bixin doonaan xogta kulamadana looga wada hadlayo balse madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa dalbanaya asagana in ay ku weheliyaan kulankan wasiiro ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland iyo xildhibaano kana tirsan dawladda federaalka Soomaaliya arintan ayaana ah haatan in uu dalbaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni 3 wasiir ee kala ah wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Dhamanacad wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgal iyo wasiirka tamarta maamulka Puntland Carshe Saciid oo Muuse isla markaana haatan la doonayo in labadooda in 3 wasiir lagu soo biiriyo shirkan balse Saciid Cabdullaahi Deni ayaa aad kaga biyadiidan haatan inuu aqbalo qodobada uu ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale waxa uu hordhigay dalab ah in la soo afjaro khilaafka u dhaxeeya labadan dhinac madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waana uu ka wadhaga adeega arintan sida aan xogaha ku helnay Saciid Deni iyo 3 wasiir ayaana sida la xaqiijiyay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka hor inta aysan ballamin kulanka u dambeeyay ee dhaxmari doona labada dhinac waxaana haatan soo baxaya warar sheegaya in lagu kala kacay shirka ka socday madaxtooyada maamulka Puntland isla markaana Saciid Cabdullaahi Deni oo haatan meel gaar ah kulamo kula yeelanayo 3 wasiir ee dalbaday wixii markan ka dambeeyana ayaa la sheegaya in shirkan la ballaari doono isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay dhinac fadhiyaan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku garab ah iyo Deni oo wata saaxiibadiisa arrimaha siyaasadda gaar ahaan wasiiradiisa in ay isugu soo laaban doonaan kulankan labana ogaa haatan in ay dhinacyada isku fahmi doonaan arintan markana ciidamada New Police ee ka howlgala gudaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen maanta xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaano ku yaala dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo la sheegay inay ku dhumaalaysanayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ciidamada New Police ayaa waxa ay sheegeen in ay qaadeen weerar dhowr jiha kaasi oo ay ku ekeeyeen Al-Shabaab isla markaana waxa ay sheegeen in ay ka war heleen in Al-Shabaab ay doonayaan in ay weerar kaga soo abaabulaan deegaano haatan ka agdhow halkaasi waxaana cabsi weyn ay soo food saartay ciidamada New Police ee ku sugan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayadoo muddooyinka ugu dambeeyay halkaas ay ka dhacayeen weeraro culus kuwaasi oo Al-Shabaab ay u adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana la beegsanayo ciidamada New Police
ee ka howlgala deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo weerarka maanta lagu qaaday ciidamada New Police war ka soo saaray ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen weerar kaga yimid Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale sheegay in weerarkan laga soo abaabulay dhanka gobolka Hiiraan gaar ahaan xuduudda uu la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sidoo kale waxa uu sheegay in Al-Shabaabka dowladda Soomaaliya dagaalka kula jira ee ka dagaalamaya gobolka Hiiraan ay dagaalkooda doonayaan inay u wareejiyaan dhanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida uu hadalka u dhigay Mustafa Cagjar. Sidoo kale waxa uu sheegay Mustafa Cagjar haatan in qorshaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu yahay sida ay isaga difaaci lahaayeen Al-Shabaab isla markaana ay heleen xogo amni oo la xiriira in Al-Shabaab qatar amni ay ka geysan karaan magaalooyinka waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Mustafa Cagjar ayaana guud ahaan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ku dheerageliyay howlgalka ay wadaan asagoo sheegay inay iska difaacaan qorshaha ka dhanka Al-Shabaab ee haatan la xiriira dagaalka laga cabsi qaba inay ku qaadaan. markaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Tunis ee dalka Tunisia waxa uu kaga qayb galay shir caalami ah kaasi oo laga hadlayo arrimaha horumarinta Afrika. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shirka halkaasi ka furmay ka qayb galay waxaana ku weheliyay dhammaan xubnaha wafdigiisa ee shirkan ka qayb galay. Shirkan ayaana waxa ka soo qayb galay madax heer caalami ah. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa ayaa ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee ka dhacaya magaalada Tunis oo looga hadlayo horumarinta Afrika oo halkaasi ka soconaya muddo dhowr maalin ah. shirkan waxa uu furay madaxweynaha Tunisia Qays Siciid oo ka hadlay iskaashiga dalalka qaaradda Afrika iyo dowladda Japan. shirkan caalamiga ah ayaa sidoo kale waxa khudbado kala duwan ka jeediyay madaxda Afrika iyo Japan waxa ayna ka wada hadleen qodobo ay ugu waaweyn yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo sidii loo abuuri lahaa fursado horumar bulsho iyo isku filnaansho ay gaarayaan wadamada geeska Afrika isla markaana loo ilaalin lahaa nabadda wadamada Afrika. madaxda shirkan ka soo qayb gashay ayaana arrimo kala duwan kaga hadlay khudbadihii halkaas ay ka jeediyeen. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaana shirkan ku matalaya dowladda federaalka Soomaaliya. markaana madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa loo jeedinaya eedeymo xoogan oo la xiriira inuu ka gaabiyay arrimo la xiriira dagaalada ka socda deegaanada maamulka Galmudug kuwaasi oo badan dagaal beeleedyo. warar kala duwan ayaa laga helayaa dagaal khasaare geystay oo weli ka socda deegaanka Dhabad ee waqooyiga gobolka Galgaduud kaasi oo u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed isla markaana haatan wararka ay heshay warbaahinta Somali Life ayaa sheegaya in ku dhawaad 5 ruux ay dagaalkaasi maanta ku dhinteen tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. dagaalkan ayaa sidoo kale dadka ku dhaawacmay waxa loo kala qaaday magaalooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado oo ay ka soo kala jeedaan beelaha dagaalamaya. madaxtooyada maamulka Galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug wali si rasmi ah arrintan ay kaga hadlin waxaana haatan Qoorqoor uu wajahaya fadaaxad xoogan oo kaga imaanaysa dhan walba haddii ay tahay siyaasadda iyo deegaanada ay ku sugan yihiin dadka dagaalamaya ayaana haatan la sheegaya in xaaladoodu ay tahay mid kacsan. madaxweynaha Galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi ayaana haatan waxa ay wajahaysaa fadaaxad xoogan iyo cadaadis kaga imaanaya dhanka siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug kuwaasi oo dalbanaya haatan in Qoorqoor wax ka qabto dhibaatooyinka amni darro ee ku soo badanaya deegaanada maamulka Galmudug. walina waxa beerihii maanta halka ku dagaalama la sheegaya in ay wadaan hub aruursi la xiriira iyadoo laga cabsi qabo in mar kale dagaalka halkaas uu dib kaga qarxi karo isla markaana dad goob joogayaal oo la hadalay saacadihii la soo dhaafay ayaa noo xaqiijiyay in dagaalku haatan u socdo isla markaana dad badan dagaalkana ay ku dhaawacmeen kuwa kalena ay ku dhinteen. sidoo kale waxa ay noo sheegeen dadka deegaanka in ilaa iyo haatan aysan jirin wax siyaasiyiin ama maamul ah oo ku baxay dagaalkan isla markaana lagu kala qaadayo beelaha halkaas ku dagaalamaya. saacadihii la soo dhaafay dagaalkan ayaana ka dhashay dul daaqsimeed labada dhinac ay isku haystaan. madaxweyne Qoorqoor oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq ayaa haatan waxa uu ku mashquulsan yahay sidii uu kursigiisa siyaasadda ku difaacan lahaa isla markaana waliba haatan taasi waxa uu si dheer Qoorqoor inuu wada muddo kororsi la xiriir 1 sano iyo wax ka bedelka hay'adaha sharciga dowlad goboleedka Galmudug balse arinta la yaab kale ayaa Qoorqoor inuusan warba ka haynin haatan
inay daadad siyaasadeed ku safool leeyihiin kuwaasi oo ay u qooshaysa filla Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug isla markaana la doonayo in qoorqoor xilka lagaga xayuubiyo. Qoor ayaana hore lagu eedeynayay muddo badan inuu ka gaabiyay arrimaha horumarinta deegaanada maamulka Galmudug iyo qodobo kale oo dhowr ah. ilaa haatan ma jirto tilaabo lagu xalinayo arrimahan isbiirsaday ee ka taagan deegaanada maamulka Galmudug ee uu qaaday madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. guud ahaan daawada wararka aad kala socoteen Somali Life Media waa naga intaas fadlan daawada muuqaalkan hadduu soo gaaro si share gareysaan oo la saaxiibo idinkoo kale waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo la jaanqaadkeena mahadsanidin.